وعنا وناكسن إذا لهنتين باخيارتا قيمها يقدرين تمضنا وميل والبا يسوى البو النولا شانقادسان وبهدي اس تي في وإذا لمركا لكوسو دوادا برنامج قارا هو أنه كو ريسان إنه وحوي موليد هاير كحيجينكا وكالada dakhliga ee dawladda deegaanka Soomaalida sidoo kalena macalinka tababarka ugu dambeeya siiya ciidamada liyu booliska marka ay qalin jibinayaan isagoo sidoo kalena mas'uuliyiinta markaasi dhaqan celinta u sameeysa ururada nabadda qaatay mawlid waxa uu kamid ahaa uga qayb galay xukuumadda dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya wada hadalkii dhicisoobay ee ka dhacay magaalada Nairobi ay ku wada hadlayeen xukuumadda iyo waliba kooxda casmara ee uba kaas oo ku dhamaaday fashil iyo waliba is-afgaranwa hadda waxaan jeclaan lahaa inaan barnaamijkaygan gaarka aanu waxyaabo badan oo ku aadan kooxdan uu casmara ee markaasi heshiiskii nabadda iyo waliba sida uu ku burburay ugu horreyn waxaan leeyahay mawlid ku soo dhawow barnaamijkayga iyadoo xusid mudan tahay marka hore mawlidow iyo guud ahaan daawadayaal in dawladda deegaanka Soomaalida waqti xaadirkan uu maray heerkii ugu sareeyay dhinaca horumarka iyo waliba nabadgelyada oo guud ahaan gobolada iyo degmooyinka uu deegaanka Soomaalida ka kooban yahay xasilooni iyo amni sugan uu ka jiro kadib markii laga takhalusay oo guud ahaan la burburiyay kooxdii nabadiidka oo markaas ka dhaqdhaqaaqi jirtay qaar kamida tuulooyin hoos yimaada gobolada Qorraxay Jarar iyo waliba qaar kamida gobolka Kanfiiq iminkana guud ahaan deegaanka uu heerkii ugu sareeyay nabadgelyada ka marayo haddana waxa jirtay in xukuumadda ay markaasi ay gogol nabadeed u fidisay cid walba oo markaasi nabadida heshiiskii la damacsanaa in laga gaaro dhinaca nabadda dhexmariyay xukuumadda iyo waliba kooxda casmarana waxa uu ku dhamaaday fashil uuna dhicisoobay waxaan nooga qayb galay waxa xukuumadda dawladda deegaanka Soomaalida uga qayb galay sanad uu sheegay mawlid hayr mawlid ugu horreyn waxaan jeclaan lahaa inaad ku soo dhawaado barnaamijkayga kadibna aad u talawdo su'aasheeda koobaad oo maxaa fashiliyay ama fashilka ku keenay shirkii wada hadalka nabadda ee ka bilowday Nairobi wayahay wariye burgaba aad iyo aad baad u mahadsan tahay marka hore waxaan ka mahadnaqayaa inaad barnaamijkan isaga adigu macsuuntaan sababta ay tahay sahan nabadeed baan u baxay macnaha sahan markii loo baxo ee reerku meel ku abaarsaday ee loo baxo waxa weey wixii laga soo noqday baa yaani la soo arkay baa laga warrama marka waxa weey maadaama aan sahan nabadeed iyo ergen nabadeed u baxnay dadkii iyo dawladdu way naga dhul sugayeen xukuumaddu kulli way ogtahay laakiin shacab weynaha inaanu yaani ceel ninkii galay baa ka warramay inuu biyeelay inuu nabiye lahayn inaanu shacabka uga warrano xaqna loogu leeyahay way fursadda meediyada noo siisan inaan arinta iyadana warbixin ka siinaan aad iyo aad idinka mahadnaqayaa marka koobaad horta intaanan ka hadlin wada hadallada waxa fiican inaynu bal nooca dawladeed ee maanta ka jira Itoobiya waxa uu yahay xukuumadda dawladda deegaanka Soomaalida ka talisay laftigeedu sidee bay kursiga ku timid sidee bay tahay xisbiga talada haya muxuu ka kooban yahay inaynu bal background horta yara taabano intaynaan taa u keen horta marka koobaad waxaan oran lahaa anagu xukuumaddan hadda muxuu ahaa nidaamka federaaliga ku dhaqantay Itoobiya xukuumadihii ka horeeyay sidee bay ahaayeen deegaankeena sidee buu ahaa inaan sawir yar ka helo waxa weeye xukuumadii mataqaana dargiga iyo xukuumadihii ka horeeyay boqortooyada Menelik iyo Haile Selassie labadaba deegaanka Soomaalidu wuxuu ahaa xiriir military yaani meel waxay ahayd aan wax horumar ka soconin meel dadka lagu laayo ku gumaado intaasoo gumaadkii dhagax buur gumaadkii mataqaana Aysha gumaadkii jigjiga ee kii u dambeeyay 77 ugaasyadii iyo boqortooyadii yaani lagu laayay ganacsatadii lagu leeyahay yani ma soo koobi karo doolooyinka tii ka dhacday anu tuuladan ku dhashay xataa barnaamij mar hore aan sheegay baa jira tuuladan anu ku dhashay baa 96 iyo 6 ruux lagu dilay saacad gudaheed saacad ka yar nus saac marka macnaheedu deegaankeenu wuxuu ahaan jiray iyo waxa maanta uu yahay inaan isbarbar dhignaa marka hore fiican marka waxa weey yani Itoobiya khariirad ahaan baynu uga mid ahayn laakiin xuquuqna kuma inaan ahayn leeynoomana aqoonsanayn dawladda hadda intii ka horeysay inaan taa loogaado way marka macnaha hadalka waxaan uga dan leeyahay maalin la dagaalamo oo duurka la galo oo raan la yeesho oo yaani jabhad raameystay la noqda maalin bay ahayd way waa maalintu dhargi weyn haystay iyo maalintii boqortooyadu gumaysanaysa waa markaa bay ahayd gar cadadisidii talisadii hore oo kale exactly maalintay garta ahayd aniga walaalkayga weyn ilaahay bay igu labada walaalahayga waa weyn adeerkay
xigtadayda oo dhan 8 ruux ilaa 9 ruux baa jabhadii mataqaana 77 maaha ciidamadii Soomaaliya soo duulay maaha jabhadii dagaalamaysay horyaal bay kamid ahaayeen ani walaalkay idla faarax baa la yiraahdaa hadda awbaru jooga tababarihii jabhadu ahaa marka xaway maalin la dagaalama oo aniga qoyskayga laftiisu dagaalamayay maalintii cadaadiska ugu weyn haystay ayuha taa macnaheedu waxaan uga dan leeyahay hadda qoladan asmara fadhida oo dawladda Eritrea ay mataqaana ku ugaarsanayso oo ah dadka ay soo diratay wadanka ay ku rabishayso cidda madaxda u ah in Umar Cimas madax uu yahay maalinta general Soomaaliya buu ahaa garaadadii Soomaaliya labisan oo baabuur bullet proof wato oo inta soo gaadho kolba dooni gudooyaha lagu raaxaysta ka haysto marna badda ku raaxaysta marna bariga annagana gumaadkii ugu badnaadaan haystay anu ciyaal qaxooti baan aga barbaan ku koray hooyadii aabahay baa gacantay qabtay ila qaxay aniga dagaalkii 77 yalla nala qaxay madfici kaarahan ka qaxnay way marka halkan waxaan doonayaa maalin yaani maanta ma waxa la naga xoreynay horumarka ma dhakhtarada aanu helay ma jidadka aanu helay ma leydka aanu helay bebiyaha aanu helay ma xukuumadda calanka leh ee sumadda gaarka leh ee afkeega iyo dastuurkeeda gaarka isku maamulaysa ee saddexdii hay-adood ee dawladii lahaan jirtay leh waa judiciary iyo baarlamaankiya waa maxkamadii iyo muxuu ahaa baarlamaankii saddexdii hay-adood ee dawladii lahaan jirtay baa noo dhan ta kale waxaa jira governmentiga iyo state wax la yiraahdo wax u dhaxeeya baa jira annagu hadda state baan nahay Somali regional state baa la yiraahdaa Ethiopian Somali regional state state way ka macno weyn tahay dawlad waxay uga macno weyn tahay dawladii waa in kooban oo saddexda hay-adood bay ku kooban tahay state-na waxa la isku yiraahdaa dhulka hawada shacabka ku dhaxnool xuduudaha uu leeyahay iyo saddexda hay-adood ee dawladeed ku dhaqan intana la isla yiraahdo bada barigiisa badiisa hawadiisa wixiisa oo dhan ba state la isku yiraahdo marka maanta anagu state baan nahay xataa dawlad deegaanada waan ka qaraweyna marka sharafta noocaas oo kala ah yaa ilaahay ma taqaana waa nicmada uu ilaahay ku siiyay waa lagu imtixaamaya ilaahay hadduu kugu keeno dhibaatada waa lagu imtixaamaya hadduu ilaahay nicmo ku siiyana nicmada waa lagu imtixaamaya waati Sheekh Ibrahim shalay uu ka hadlay ciidi ee uu lahaa waa inaad ku shukridaan haddaad ku shukri weydaana de ciqaab shadiida ba lagu bedelay marka nicmadani maanta iyo xorriyadan aan maanta helay miyay ka halgamayaan oo tanay diidan yihiin hadday tii kala diidan hayeen lenjananka maanta halkan ka dagaalamaya ee dagaal baan wadaalo dadkan aan xoreynaya muxuu shalay u dagaalami waayo dhagax buur iyo awaare iyo jiidan u soo gali waayay uga dagaalami waayo xaqiiqda inaan taabano way talabaad hogaaminta nimankan dagaalamaya waxay yihiin laftigeega inaan taabana fiican waa kuwa deegaanka aanu dhalanino sida maada oo kale oo deegaanka u dhalanin de ogaadeen baan ahay deegaanka laguma muwaadin laguma wada noqon kara de ya ka degan mataqaana Kenya waa Kenyaati way ka Soomaaliya degan waa Soomaaliya u dhashay ka deegaankan Soomaalida Ethiopia degan waa kan magaca qabiilka ka dhaxeeya wadaniyada iyo nationality iyo inaan ka wada talino anu Soomaalida Kenya iyada Kenya ka talin anu kama talin kara de Soomaaliya iyada ka talin anu Ethiopian baan ahay Ethiopianimadeedan yaan ku han weynahay dalka Ethiopia saddex meelood markii loo qaybiyo meel baan leh stateska marka la yiraahdana Oromiya marka laga reebo dawlad deegaaneedka ugu dhul balaaran bana qoomiyad ahaan marka la yiraahdana waxaan ahay laba qowmiyadood kaliya iga horeeya Axmaarada iyo Oromada kaliya qowmiyada saddexaad baan Ethiopianimadeeda cid iyo daba fadhida mooyee nin uma daba fadhiyo waxa hogaamintan inta shaqaysan soo gali doonaa marka maxaa fashiliyo oo kala daan ku socono bal wada hadalkii marka intaan wada hadalka laftigeega intaan u soo dhaadhicin wax yaani anoo taa wax ka soo sheegay waxa haboon hadana dawladda xukuumadda hadda talisa siday ku timid inaan sheegno xisbiga talada hayaasa sidoo ku yimid sida laga warqabo xilligii mataqaana transitionalka ama kumeel gaadhkii kala guurkii ururo badan oo magac qabiil ku dhisan baa asaasmay ururadaas mid walba qabiil buu dabada ku hayay wax dan umadeed oo soo waday ma jirin ururadii marka mar 12 urur baa ku midoobay leego oo ayna nafna awalba horaba urur bay ahayd labada urur baa markii u dambeeyay tashaday oo yiri warsadan iyo tafaraaruqan iyo magacan qabiilka kuma jiri karnay aynu midowno marka ugu horeysa shacabkeena waxaan doonayaa anigu inaan ka saxo oo inay ta kursiga fadhida tahay ee talinays hadda EPRDF waxay ka kooban tahay 4 urur oo ambareela isla Soomaha oo EPRDF la isku yiraahdo TPLF oo BDO intaas oo isku tagtay 4 isku tagay baa isku marka xisbiga dimuqraadiga shacbiga Soomaalida Ethiopia waa in la ogaadaa in ONLF iyo leega ka koobaya marka ONLF
ما هذا هو دجالنا يا وأبوي حقيقة إنسان له وجاده وي أبو وحوي وأورك باب أنت يبهدلك وجادين كوي يوحي لين ويدي هذا شني اللي لقى ما يقانو ليبان اللي لقى ما يقالو أفدارنا اللي لقى ما يقالو واللي بقبائل وجادين كوا وين يكون دقنيهم بكري لو ديدي ما هي له وضد قرنية وناق يشرفتي وناق واحد ليهين وحوي مركا يعني وإن لأجادا oo in lafta xaqa ah in ay tahay tan kursiga fadhida ee heshiiska gashay ee maanta talinaysa madaxweynaha Cabdi Maxamuud Cumar baa oo ina lafa aniga oo ina lafa cid kasta oo kursiga fadhida baa oo ina lafa cid kasta oo kursiga fadhida baa leega macnaha labadii isku biiray baa ah way waa in sida loo ogaada marka arinta kale aan taabanaya waxa weeye sidee ku yimaadeen xisbi ahaan saasay ku yimaadeen laakiin ta kale ay xukunka ku qabteenna waa nooc doorashay ku yimaadeen maamulka hadda jooga kursiga shacabka food ku riday cod oo cidaasan dooranayni cidda ay doorteenna waa xisbiga aqlabiyadda iyo shaqada talada qabtay marka waxa weeye ciddiga kursiga imaanaysa cid si dastuuriya ku timid oo doorasho xaq oo dimuqraadi oo adduunyada goobjoogayaal ka yimid caalamka oo dhan ka yimid ay u joogaan ku soo baxday inay tahay weey marka cidda kursiga hanaanka lagu imanayo iyo cidda kursiga fadhiisanaysa sida ku imanayso inay si dastuuriya tahay iyadana in la fahmo ayaa muhiim ah marka sida cid si dastuuriya ku timid si dastuuriya un bay ku tagi macnaheedu waxa weeye cod bay ku timid cod un bay ku tagi si kale oo ay ku tagi kartaa ma jiro marka propagandada iyo mataqaana heshiis walaalaha iyo gogol inaanu fudino nabad la qaadano oo war wadanka lagaama lahayn kii wadanka u dhashay weey kan wadanka u dhalan kaba wada gorgortamayno kii wadanka u dhashay inaan gogol u dhigno oo soo xiroodo hadii la doonayo xafiis loo magacaabo kii askari ahaana asluub fiican haduu yeesho ciidanka lagu daro shalayba kuwii dagaalka lagu qabtay baa maanta saraakiil oo ragga ugu sharaf badan ee ammaanka imika 25 baa guulaha ugu badan soo hoysay waragii shalayta dagaalka lagu qabtay iyo kuwii iskood isku soo dhiibay way wadanka lagama laha garaadadii wadankay xidhan yihiin way ka talinayaan sharaf bay ku leeyihiin kuwana sidaas oo kale kii wadanka u dhashay soo dhaweeyaan leena wadanka lagama laha laakiin waa in la ogaadaa in sida kursiga lagu imanaya ay tahay doorasho ta kale maxaa la iibinayaa shacbigu ha iibinaya shacbiga anagu maanta waxaan ka iibinaynaa oo macnaha waxa weey politician marka ama qofka siyaasigu wuxuu shacabka ka iibiyaa wixii noloshiisa wax ka bedelaya ceel baan u qodaynaa jid baan u samaynaynaa dhakhtar baan u samaynaynaa xoolihii baan u tallaalaynaa xataa ciidankii liyu booliska ayaa maanta markuu يعني دقح ولي جيد كسته هوستيدا وبكدي دي وكسواي يا حوله بيره وقضي وطلع لي وذرت انت في هذه الشركه لا سعودان marka anagu waxa weey marka ugu horeysa in xukuumaddu siday ku timid iyo siday ku tagayso in horta ay shacabku ka dhirgaan oo propagandada badan iyo waxa yaani shalata sheekhu kala dardaarmay ee ninka waxaan ogeyn fidiye fidmada yaani yeelanaya laga hadlayo way inta la ogaado tan kale iyo markaan shirki u soo noqono waxa fiican marka ugu horeysa mudnaan inta leeg baa la siinayay mudnaanta la siinayaa sababtay ku timid maxay tahay inaan isweydiin مثلا dabacsanaan hadii la muujiyo ma military ahaan baan weeqanahay oo marka inaan weeqanahay oo awood military ahaan la inaga gacan sareeya inagu kalifaysa inaan nabadda tagno oo intay u balix gobol 9 gobol soo qabsatay baan intayna kii u dambeeyay qabsan baan iska sasabayna mise nabad jacayl baan nageeyay inaan idhaahno way oo labada miisaanka saarna way marka ugu horeysa waxa weeye mudnaanta dawladda deegaanka Soomaalida iyo dawladda federaalku ay nabadda siisay waxaad ku garanaysaa miisaanka dadka ay u dirtay baad ku garanaysaa wasiirka gaashaandhigga hogaaminaya waftiga xubno kale oo anagu kamid ahay oo ilaa 7 xubnood oo mid walba miisaan culus leeyahayna waan ugu jirnay anaguna xubina ay dawladda deegaanka Soomaalidu diratay oo madaxweyne ku xigeenada iyo afayeenka baarlamaanka ahna gudoomiyaha xisbiga iyo madaxweynuhu go'aan ay soo saareen baan ku tagay anigu وإن مركو وجوه رئيس الله لأوجاده يعني شركة سدا أن كنت جاي أنا حكومة ده مثلا وما راح يدو يدرتين أن تجوي دولة الفدرال كنا هنا كقوة أنت كل اللي يسوق تجي أرنت لقاها الله يعني جنبيلا لقاها الله يبنيشان كل جمسة وح لقى حد شون يحبناها ولا له هنا هي دجان كأودا شيء ولي بكون دجان كأودا شيء ويوانكو علنيا ويدي لقاها الله يعني تاي وح لقاها الله يعني بنيشان كل جمسة جنبيلا يعنفرت وانا هنا هنا دجان كتا sida awgeed in deegaanku mar walba wada hadalada qayb ka ahaado roolka ugu weyn u lahaada khasab inay ahaato inay taatahay oo cid walbana ay ku sandulaysan tahay marka way mudnaanta dawladda deegaanka iyo dawladda federaalku siinaysa waxaad ka garanaysaa miisaanka in wafdi wasiirka gaashaandhigga hogaaminaya in loo diray ta kale dawladda deegaanka dawladda federaalku hadii maanta laga hadlayo arrin gambeelo khuseysana
dee dowladda federaalku goobjoog bay ka ahaanoo facilitationkii iyo adeegii bay fududayni laakiin cidda lagala hadlaya ee hawsha ay khuseynaysa ee heshiiskuna saameyn ku yeelanayo berito waa Gambella marka wax weeyaan annagu inaanu ciddii mataqaanaa hawshan iyada ay khuseynaysay tooska u khuseynaysay inaan nahay inay cid walba ka dhareegsanaato wey oo baalabeydka ka ahayd macnihi inaanu annagu nahay marka wada hadallada iyo sidii ku mataqaanaa uu heshiis kaga soo bixi waayna waxa weeye waxaa jira markii ugu horeysaba horta markii ugu horeysay wadahadalkani wareegii labaad inuu ahaa inaan ogaano markii hore sida idaacadaha ka sheegteen iyo sida xogta lagaga hayayba dad yacni inay heshiis galaan oo heshiis inay galaan oo nabad qaataan muujiyey bay ahaayeen taa iyadana annagoo ka duulayna inaan walaalaha iyo soo dhawaada waddanka laydinkama laha ku soo dhawaada walaalka iga maqan baad ahayd horumarkaad wax ku kordhin lahayd aqoontaad wax ku kordhin lahayd ammaankaad wax ku kordhin lahayd soo dhawo inaan nirno gogol fidino aan ku khasbanay taa markaan fidinay dee waxa weeye cidda kale intii labada wada hadal u dhaxaysay wada tashi inay galeen baa noo soo baxday markaa oo cid iyo shisheeye la talinayso oo fariin ay ku socdaan inay ikhtiyaarkooda ku socon sababta ay tahay waa maxay waxa weeye dastuurka Ethiopia way sharciga ugu sareeya ee dalkan xataa heshiis caalami ah marka la galayo heshiiska caalamiga dastuurka muwaafaqsan yahay leegi waa international deal baa la galaya hadda ugu waa agreement baa wadan kale bilateral baa la galaya haddana waa inuu waafaqsanaada heshiiska in dastuurka wadanka waa sharciga ugu sareeya ee wadankan la ilaaliyo marka anagu waxa weeye walaalahayo article 9 ama qodobka 9 waa inuu waafaqsanaada ficilka aanu sameynayno anagu oo dastuurka taa macnaheedu waxa weeye in marka ugu horeysa dastuurkan loo hogaansamo dastuurkana mid waa inaan cadayna hadda idaacadaha waxay ka sheegteen dastuurkii baanu diidnay dastuurka inay diidaan iyo inay ogolaadaan mid iyaga u taallama laguma wada hadlaynin dastuurka 85 milyan oo Ethiopia baa ansixisay ya oo si toosa iyo si dadban labadaba u ansixiyay si toosa markaan leeyahay waxa jira direct democracy wax la yiraahdo oo iyo parliamentary democracy direct democracy waxa weeye waa codka tooska dadku ay ugu ridaan parliamentary democracy na waxa weeye through parliament baarlamaankaagii baad xuquuqdaadii shacabka sii dhex marin ilaa doortay isagoo wakiilka abu si ansixin wixii proclamation iyo wixii ma taqana shuruuca marka waxa weeye labada sababoodba way martay dastuurku مسودد بالورن جرو حلقة شعب كنا والله برنجة ولا كست يدق مكست ولا جي ولا قصة دوري دوردا يدا شعب وقصة دوري أيها هذانا وقدام بنتي فاينل برلمان كواسحي برلمان كواسحينا توحوي إثيوبيا نبقى كورنا مركا هرت الدستور كان أنا أنصحني يا أقوانس اللوجا ما بحناه وحلوجا بهنيه إنه هو جان سمانه احتراما مركا مد اللوجا بهنيه إنه هو جان سمان إنه نلاقى تام بيكون الرئيستين ويا maaha aqoonsada iyo sida iyagu idaacadaha ka sheegteen aqoonsiga uga ma baahna wuxuu uga baahan yahay inay u hoggaansamaan oo ixtiraamaan shacabka Itoobiya ansixin loogama fadhiyo iyaga inay ansixiyaan marka qodobka koowaad ee aanu marka ugu horeysa ay diideen way waa kan laakiin wixii kale ee daba yaala ee macna shuruuda ee kale ee macquul ah la liqi kale ee reasonable مثلا 400 ciidan aanu leenahay 400 ha loo jiheeyo oo kuwa meelaha ku gagabanaya ku dhuumanaya oo dhaqan celin ha loo sameeyo kii ciidanka kamid noqon kara ciidanka kamid noqdo kii xirfad kale yaqaanana xirfadu yaqaan dadkiisa ku dhaxgalo wax la isla diiday ma jiro hunguri baba nagu jiro hunguri kursi baba nagu jiro ee ma taqaanaa bal dawladda waxana laga siiya oo ma taqaanaa qaarkaya meelaha loo magacaabo hadii ay la iman lahaayeen de goorteeda ay ahaan lahayd marka dhaqan celintii baad marin marka ugu horeysa waxa weeye waa in jidkii iyo nidaamkii la marayay aan la maro weey marka taa inta aan isla gaarin waxa weeye waa dastuurka Ethiopia iyo dawladda deegaanka Soomaaliduna marnaba hadii bari la isku yimaadiyo saadan hadii la isku yimaado arinta aan marnaba gurgurtan galeyn waa dastuurka weey sababtay tahay aniga iyo kooxan kamid naho meel tagnay ma bedeli karna dastuurka gorgortana kama bari karnay 85 milyan baan saxiix wataa marka qodobada koobaad u burburay waa taa weeyaan waa in la ogaado annagu gogasha nabadda annagoo fadhina inay nagaga kiceen waa in la ogaado oo sababta ay nagaga kiceen ay ahayd horta aynu qodobkan koobaad isla qaadano kadibna wixii kale daba yaala aynu ka wada hadalno waxba la isla diidi maayo soo dhawow annagoo la in gogasha nagaga kiceen waa in la ogaado way arrin aan la dhaafi karin oo cid walba oo waxa weey Ethiopian aysan dhaafi karin bay arrintaas inay dastuurkeena qaataan ayaguna aqoonsi uga baahneen saas sheegtay haddaba
maxay ahayd danta gaar ahaaneyd ee shakhsiyaadka aad la kulanteen ee waxa weeye madaxda inay yihiin sheeganayo kooxdan ubbo ay ka faa'iideen ama ay kala hayeen inay gogasha nabadeed imaadaan horta marka koowaad waxa weeye waa inaan ogaanaa horta ma taqaanaa in remote control lagu maamulayo macnaha oo dadkan dad shisheeyaa oo aan dadka u danqanayn inay u talinayaan kow taasaan anigu u aanaynaya oo marka koowaadba shisheeyaa la talinaya oo cadow baa la talinaya oo afku dhiiglaa la talinaya waa inaan taa ogaanaa marka labaadna waxa weeye mas-uuliyiintoodu inay isugu jiraan kuwa shalay markii dhergigu dadka uu gumaadayay inoo danqan waayo oo garaado waddan kale ku xaragoonayay iyo kuwa madaxdii dhergiga laftigeega ee kaaraha 55ka T55 ka saarnaa iyo T65 ka dadka gumaadayay inay ka mid yihiin marka aanu shalay markaan xiraq qaxooti oo aga bara anoo aabahay gacanta iyo hooyaday ila qaxana ku korayay kaarihii waddanka iga saaray ninkii ku jiray ee maamulkii dhergiga ka mid ahaa in uu maanta awaanid xoreeyna leeyahay sulub oo kale tusaale soo qaadanayna xaqiiq way Soomaali baan nahay waan soo garanayna marka waxa weeye nin hukuumadda u dambeysay dhergiga exactly militariga hay marka waxa weeye iyo niman waddankaba u dhalaninba hadda ninka jubbooyinka u dhashay oo kale hadda de qabridaha arinteeda inuu ka taliyo waatan hadeer ka hadlayay marka waxa weeye marka ugu horeysana inuu qaab dhismeedkooga iyo hogaamintoodu naxariis laawayaasha shalay markaan dhibaataysnay dadka u nixi waayay inay ka kooban yihiin waaba kuwa deegaanka sheeganaya inay u dhasheen iyo kuwa aan u dhalanin marka labaadna kala rag wuxuu ka mid ahaa shirkan aad iskugu imaateen hadda maadoo kale hadda waxa weeye jubbooyinka u dhashay arrinta Soomaaliya inuu ka taliyo way SBM iyo USC iyo xubinka ahaa labadii urur ee hogaamiyaha burburay yu ka mid ahaa marka inuu tan maanta waan ka talinayaa yiraahdo waa xaq darrada way wadamada ururadaas ay ka tirsanaayeen ama urur dagaalamaya oo mataqaana ha noqdaan hogaamiye kooxeed hogaaminayo ama urur siyaasi ha noqdaan taa inay ka taliyaan way tan laakiin inaan ka wada talino wax meesha ku jira ma ta kale waxa weeye arinta kale ee muhiimkii waxa weeye inaan mataqaana aynan caruur iyaga kagama jiraan geel jiraha maalin walba la soo abaabulayo ee maalin walba dagaal madaxa loo gelinayo saddex darajo way horta darajo waa darajada boorsooyinka waaweyn wadatay dhiigga shacabka ka kalluumaysanaysa meelaha kaga ugaarsanaysa way darajana waa darajadani mataqaana dabka waxa jira xilli kartoon ka soo baxay xilligii dagaalada ay Muqdisho socdeen yaa waxa lagu matalayay hogaamiye kooxeedadu iyo sidii dadka ugu maadaan baa lagu matalayay marka waxa way kartoonka waxa lagu sheegayay waa film kartoon macnaheed waa sawir way waa sawir nin muufad dubaya oo birtan weyn muufada la geliya xagga hore ku qaata roodida adartay oo bir dheer baa la geliyay soo hula cadabka ku taaban oo xagga dambe la hayaa jiro si loo geliyo halka roodida dhexdeeda halkii roodida ku jiraysa dad baa ku jira dadkan dabka la gelinaya dadka muufada dhexdeeda macnaha dagaalka loo la jeeda ninkan gelinayana waa hogaamiye kooxeed markaas wuxuu leeyahay war miyaanan maalin uu idinku qadaynayeen dabka ii gelinin buu leeyahay way ilmadeeradii waxaan dabka u gelinaya marka waxa way qolyahan boorsooyinka watay meelaha wareegayay wiilasheena geel jiraha bay maalin walba dabka gelinayaan oo waxay ka dhigan tahay taa magaranay maalin uu kugu qadaynayninta ayay ka dhigan tahay marka waxa way in marka ugu horeysa la ogaado sababta ay dagaaladan u wada inay rabshada sii wadaan ay u jecel yihiin heshiiska in la galana ay uga cagajidayaan in ay tahay in dilaalistu ay ka soo gaabanayso film actorka hadii la diro soo xidhmi Soomaa waxa si filmka loo hayo xidhmi Soomaa exactly marka waxa weeyaan yaani in ugaarsigan ay dibadaha kaga warsanayaan ay boorsada la wareegayaan in ay ka soo xidhmayso heshiis hadii la galo tan labaad caruurtoodu inay jaamacadaha iyo iskuulo qaali oo dibadaha ay lacagaha shacabka dhiiga ay ku urursadaan ay ku dhiganayaan oo caruurta maalin walba walshano ama galaalsho dhulkii loo yaqaanay ama dhagaxmado caruurta ku dhimanaysa geel jirahay maalin walba soo abaabulayaan ciidamo xoog roon oo liyu boolis oo xoog u dhisan iyo ciidamo military oo dhisan ay afka maalin walba u gelinayaan inay mataqaana inaynan oo la tabarahayn dadka ku dhimanaya inay dadkoogi yahay inuu ruux ehelkiisii maanta halka ama ilmihiisii uu ku dhimanaya kuma jiro taasina waa sababta labaad arinta kale wada hadalada u cagajidayaan waxa weey
wada hadallaan Ethiopia kula jirnaa laftigeega in mashruuc laga dhigayo hodheelo waaweyn lagu degayo lacag loogu soo shubayo taa laftigeegu inuu wada hadalkii negotiation ku sii socdo oo kala meel lagu shiro kala meel taa laftigeega kharash iyo dilaalis laga sii dabajiidayaan waa in taana iyadana waa sabab ay u tahay baan ila dakhli oo cusub oo soo ila dakhliina ilaahi dakhliga 18 sano dadka lagu soo maaweelinay markay soo gabaabsiyeen shanta qaaradood ee adduunka la tagay ee diasporadii runtii loo sheegay ee xaqiiqadii fahmeen ee maalgelintii iyaga ay ku sameeyeen khaldaneed ay maalgelin wadanka ah ee iskoolo iyo dhakhtarro iyo hoteelo waaweyn iyo jaamacado soo dhiseen ee caruurtii agoontii soo daryeeleen mataqaanaa inagu markaan agoontii nabadiidku wax yeeleeyeen markaan iskool u furneen dal yeelay iyaguna librariyadii inay u soo amraan iyo inay dadka wax ku soo taraan markii ay bilaabantay de mashruuc ay hadduu soo furmay waa in mashruuc kale la furo marka sababta kale ay nabadada ay u burburinayaan ay u cagajiidayaan waa taa weeye mar oran ama gugusha u imaanayaan ay leeyihiin waan tagnay hay waan garanay bal hay waxaad ka mid tahay waxaad tahay la taliyaha madaxweynaha sidoo kale waxaad ka mid ahayd inta badan ururada nabadda qaatay waxa weeye mas'uuliyiinta ama aqoon-yahanada markaas dhaqan bedelidda ee maskaxdooda wax ka bedela ayaad ka mid tahay marka aad baad u garanaysaa kooxdan ubo qabdhismeedkeeda waxaan jeclaan lahaa hadda inaad ka warantid iskoobkooda saameynta ay leeyihiin iyo awoodooda inta ay tahay sida dhinaca military dhinaca siyaasadeed dhan dhaqaale dhan isku xidhnaan sida ay yihiin iyo dadkaad adigoo taas og dadka aad u tagtay ee maadadii ay ka mid ahaayeen may ahaayeen kuwa waxa weeye dib isu eegay oo iskoobkooda waxa weeye information ka hamay ama faham ka haystay oo ku xisaabtamay miiska ayagoo awoodooda garanaya soo fariistay aad iyo aad baad mahadsantahay horta waxa weeye sideedaba wada hadal markii la galayo xaaladaadaad qiimeynado xaaladda inta kala wada hadalka la galaysiin waad qiimeyn adduunyada oo dhan international negotiation markii la galayo waa sidaa weeye marka waxa weeye marka ugu horeysa dee anigu inay soo xisaabtameen uma malaynayo sababtoo ah inay soo xisaabtameen uma malaynayo waxaan leeyahay xagga bal awood military aan eegno marka ugu horeysa waxa laga wada hadlaya iskoobka wada hadalku u yahay waa deegaanka Soomaalida ee ma Ethiopia kale iyo regionada kale sagaal dawlad deegaaneed iyo laba magaalo ka koobantay Ethiopia hal state oo kamid ah ama hal dawlad deegaaneed oo kamid ah Quseynaya arintani iskoobkayga horta inuu taayay loo gaaro way kolkuu taayayna cidda ka talinaysa ee deegaankan madaxda ka inay cidda wada hadalada laf dhabarta u ay marka ugu horeysa la aamino way mid labaad waxa weeye awoodaada military inaad qiimayso way midaada dhaqaale inaad qiimayso way midaada siyaasadeed iyo taageerada shacabiyad leedahay inaad qiimayso way bal midda military aan ku horeyno ciidamada Ethiopia inaga oo ciidanka liyu booliska nabadgelyadii gudaha hantay halka ay dhig ciidanka Ethiopia oo ah ciidamada yaani super powerka geeska Afrika dalkeena intay gudaha ka dhaafeen bay nabadeynta Soomaaliya ku jiraan xagga gudaha iyo ka sicigaan iyaga way يعني بودرك كتلابين نبضينت الصومالية كجرا مركا وحوي يعني جوديه محد ملاينا مركي دعينا كي ودق يعني حدوده أي نجسوا قليين بحاجة شيء لقاسي فديها إذا كل بوليس كان هدر وانيك كوسي شيء وحوي يعني أنا حلية بدن منطقة أنا يعني إذا كل بوليس كو حدي ما أنت عضو في صوت وحي كشقة يعني وح الله لو وحي سرقة تجارية النبدي بيحصلين عيل بيقضيان شد بيسمينيان اسكول بيسمينيان ويعني ان اسكولك علمك وانفعه لغو يعني صدقه تجاريه ده waxa laga hela cilmiga ku anfaca waxa lagu baranayo ama biyo la cabo ama geed la harsado ama jid la maro ama masaajid la dhiso lagu cibaadeysto inta yani waxa lagu wanaag aha oo dhan bay ka shaqeynayaan marka waxa weeye ciidankii liyu booliskuna intuu nabadgelyadii gudaha xasiliyay uu samafalkii dadka ka shaqeynaya hadda marka waxa weeyaan iska daa degmo iyo gobol iyo waxaan iska daay tuulo ay ka talinayaan maanta oo ay mataqaanaa military ahaan u haystaan ma jirto taayna soo qiimeeyaan bay dibadda iyo taageeradii dibadda ay ku haysteen intan gudaha ka badan dhaqdhaqaaqooda oo kale meelaha ka dhaqdhaqaaqaan 18 sano u dambeysay bal ay laftigooda waa meelo kooban oo waxa weeye degmooyin ka tirsan taa haddii aan waa runtahay waxa weeye aad baad ugu mahadsantahay inaad xasuusiso waxa weeye taa haddaynu laftigeega eegno هذا قبلنا قبل كسيتي أما شنيلة يعني سيتي ذا لو يقانا أوفيشال لكن شنيلة لو حنقدر يا ما دام يدتكو إن بدنا لقب صدين هو بدنا ولي مغلين يجري كلام إن قبل كلا كم يقانا
وبوح شيكتا هي ميل أي وحكة وحيان منا لقى ما يقان شريتان كود حتى ما يقان ما يقان ليبان لقى ما يقان أفدير لقى ما يقان قبل كجيجا أو فافن حتى أوفيشال وفافن مجلس لكن جيجا أول هو اللي يقان لقى ما يقانه وردير أنت هذا بدن لقى ما يقانه وحوي ومالك هوبن وولي بتولوين remote area oo ma taqaan ay shacabka ku dhibayaan ay koobka caanaha ay wayeelku cabilahay caruurta ay ku dhibayaan iyo galaanka taageerada ee raashinkan inagu siino ay ka sii daadsanayaan oo qabri dahar inama qorraxay iyo inta ma taqaan yar nagob iyo inta ay ku yar dhaxwar wareegayaan weeyaan taa laftigeedu waxa weey scope-koogu 18 sano umada dhibayeen waxay dhaafi waayeen intooda badan meelaha ay ka soo jeedaan ay sheeganayaan kuwa deegaanka u dhashay meelaha ay sheeganayaan taana waxa weey qodax baa lagu saaraa qodax haday ku mito qodax baa lagu saaraa ciidanka liyo booliska oo isaga laftigiisu deegaanada ciidanku deegaanka dhan ka kooban yahay laakiin yaani rag badan oo deegaanada u dhashay ay ku jiraan yaa geed walba hoos fadhiyo oo maanta beerihii galaalshay intaas oo sano aan laga shaqeyn iyo shalay beeranaya wadarka universal bu ka baxay ciidanka liyo booliska oo beeraha u falaya shacabkii marka way taa qudheedu scope-koogu wuxuu dhaafi waayay macnihii tuulooyin يعني لبضع قولة مقرح iyo dhagaxbuur area-deeda iyo dhaafi waayay tabartooda inay taana ku xisaabtamaan bay tabartooda afdheer gaadhi weeyday ee goday gaadhi weeyday ee jijiga gaadhi weeyday ee shil la soo gaadhi weeyday xagee tagi way scope-koogu taa way xagii military ahaan markaan eegnana ta siyaasad ahaan taageero shacab markii la yiraahdo intaas ku kooban tahay xagii dibadaha markaan u kacno dad badan oo qurba joog oo waxa jira 77 markii aynu qaxnay Soomaaliya sida u soo galeen aruurahoogi haddana markii dagaalku Soomaaliya ka qaxay dibadaha u qaxay oo dawladda muxuu ahay inaga in cadaadiyo wadanka ay ugu dambeysay oo waxaan la helay dimuqraadiyadda inay barwaaqadan aan waru hayn kuwaas awal beer la xawsan jireen dibadaha wax ka ursanayeen tiina way soo xirantay markii wafdiyada dawladda federaalka iyo dawladda deegaanka iyo madaxweyne Cabdi Maxamed Cumar uu hogaaminayo shanta qaaradood ee adduunka la tagay ee xaqiiqadii la horgeeyay ESTV-na yani itusoo itaabsi wixii wadanka ka socday ceel biyo la furayo dhakhtar dhamaaday oo la furayo ma taqaanaa beer la qodayo qorshe dhamaaday oo maxaan qabsoomay say u qabsoomay wadilayo laleeyahay xukuumadii duli la tacal xisaabtamayo xaqiiqadii jirtay waxa la yiraahdaa Soomaalida waxay tiraa waa bariyay saacada lagu ma qarin karo haddaad gacmahaaga hor dhigtid adoo inaad iska qarisid indhahaaga ka qarisid waa suuragal laakiin de ummadda kama qarin kartid xaqiiqada iyo dhabta deegaanka maanta ka jirta waa bariyay saacada lagu ma qarin karo taamarkii ay ogaadeen laftigeega mayna xisaab sabtamina mayna oran war awoodeena dhaqaale waa sidee taageeradeena shacab ee gudaha iyo dibadda waa sidee awoodeena military waa sidee mayna oran marka waxa la yiri hadduu kibir ku been sheego danba ku run sheeg kibir ka bood bu ku oran halka laakiin dantiiba ku run sheegayo meelada ka boodi karin kama boodi karis marka waxa way يعني إنا إذا تبرتوا دميس كل يوم دام بيارنت أنا هيد حقيقة وكسو حساب تمام ما هين بنورك هذه تاكو حساب تمام هالشيء وحلا ماشي وحلا كصبح لها وطا هذا بقى أن أودودي تاكسو ده يشريتن كودي لا تنكسر ندتك وحوي أي كبر لحسن ولا نحرين إن وحوي وأنت دافع وذي يسكوب كذا والنوشكتي هذا ما حيت هاي سببته حكومة يقولوا شيء يصدقك تاكت عليه هرت كل كهرة واحد وقتها الدنيا أردن مركي لا ترسو حتى تبرتوا ده وحوي ضم هلا يوحكوا طوران الدنيا أردن بكتشرتها حدا مريكان بابا كنت الديارة ده لقلي فوقيه ده وقطع دايرة وضلك الدنيا كمان تقول حوق بدن إلهي بأود له لكن إدى أود ملتري ما أنت شايفين سدلك هو أود بدن وين ضلك النوع عيبات الديارة ده لقلي وبنتاجونك وزارة كاشاندك يا الديارة ده لقلي وفوقيه ده وقطع دايرة لقلي هرت بام هنا إيميل وحكة طوران إنه قدر الدنيا ده صدحات كمية إنه يعني وحير دقائق سميان أما مال شعب كشورو أما عيل بيا وضدك أي كعبيان أي يعني بامك كقرحيان أما إسكولا ينورد سنة يكدميان أما مخايات شاه لقعد بيا وحكو طوران أما وضي سفرهم يلشوا يوتشوا سدان أي دباتيان وحلا لا يابا ما معنيه وعن تصارف وقصة قادنية إن مال وحلا يلا الدنيا دنيا كجرت لكن تبرتوا دي أودوا دي إلى سداتها وحلوا الله تنقر قرطنا يا محيطها يعني مدنانة الدولة الفدرال وسينا سي الدولة ديجان كواني وهوش وحوي وحيكون موجنا يسان نبات شعيلك إسحابار إن دلا أنت وحشيجنا يسو إن أنا لقور قرطنا عن ديارنا هوي ما حسب كلامه حال روح ولا الكيا أو وحشيجنا يو ديجان كأول شيء أو يعني ماشان يعني كسوت شيء ده أصلهان أنت وحشيجنا ينا الله هذا اللي وياه
intaan xabad ku dili lahayn inaan walaalow kaalin inaan Google fudino isagoo ma taqaana ilaa mid ogow fikirka ku jira ayaa cadawhe ka deegaanka u dhashay ee inaga soo horjeeday cadow ma hayso fikirka ku jira cadow fikirka ku jira ama software-ka ku jira cadawga hadii laga shubo kan isagu waa hardware oo kale yani qofku waa qolofkii way waa jurmigi qofka jurmiga ma aha fikirka ku jira cadow noqon kara tusaalaan ku soo qaaday hadda saraakiisheena hadda maanta waxaan taaban karaa hadda aadan diyaar waxaan taaban karaa Sheekh Mukhtaar waxaan taaban karaa ninka la yiraahdo Xasan Boosaaso waa saraakiisha ugu wanaagsan ee maanta ku faana way shalayta cadow bay ahaayeen software cadow baa ku jira software-kii cadow waxaan kaga shubnay laba sababood naxariis aanu muujinay oo soo dhawoonidi oo Google u dhignay oo aanu mataqaana dharka ka bedelay oo aanu kii dhaawacnaa daweynay iyo haddana wadanka lagaama lahe qorigaad maalinkii wadatay qorigan ka fiican qaado garaadana maalinkii ama lahayna garaadadan labiso wadankii wakay lagaama lahe adigu ama difaaco ama shuftay ku noqon damiirkiisa adiga damiirka atiyo yaa lagu yiri waa kuwa maanta sharafta leh wadanka ciidanka ugu fiican ee difaacaya marka waxa weeyaan yani kuwa maanta inay shalay dhintaan iyo inay maanta sida yihiin midkay noo faa'iido badan adiga markaan adiga weydiiyad ma muwaadin wadanka ila labaatay sidana ka faa'iido badan Soomaaliya marka waxa weeye habar indhala intay wax sheeganayso anagu Google baan dhigaynaa oo yani tabar aan kugula gorgortamayna way naga tabar bateen aan iska qabanno wada hadal la galama ujeedadu waxa weeye inta habar indhala oo deegaanka u dhalatay wax sheeganayso Google baan u fidaynaa berrina way noo fidsantahay saadabana way noo fidsantahay laakiin shuruudayadu waa maxay waa tii hore aan soo sheegay waayahay dadka aad la kulanteen adiga oo kale Nairobi baad tagtay nimanka waxa weeye intii u socotay waad aragtay bal dadkaasi inaad sharaxaad naga siiso nooca ay yihiin iyo inay ka soo socon karaan inay mar labaad Google imaadaan iyo in heshiis la gaaro maxay kula tahay horta waxa weeyaan dadkaasi kulay la 7 ruux bay ahaayeen 7 ruux ay ahaayeen 3 nin baa wax dad yani waaweyn oo ilaa adu ilaa 4 nin ya ma 3 nin meelahaas ya dad waaweyn ha inta kale dhalinyar bay u badnaayeen dhalinyarta markii aan qiyaaso waxaan anigu ku qiyaasi karayaa dhalinyar deegaankan aragtay ama xogtiisa wax ka hayso ogmaha anu markaan qiyaaso inkastoo background-kooga hadhow marka la ogaado qaarkood ay noqon karaanba hadday doonaan shisheeye noqon karaan laakiin oo haddaba dee baasaboorro wadamo kale wataan intooda badan baasaboorro wadamo kale ku dhoofayaan ayay adduunyada ku marayaan kalo meel ku tegayaan laakiin style haddana waxaan leenahay nin wadankan u dhashay oo dhalasho wadan kala qaatay hadduu yahay weli wadankiisii danaynaya balla gorgortamo la hadlaban leen nabad jacayl bay nagu kalifaya laakiin waxaan anigu qiyaasayaa dhalinyar markii aynu dagaaladii 77 iyo wixii ka horeeyay kii 64 iyo dadyow inaga qaxay baa jira oo xilliyada dawladii cadaadiska Itoobiya jiray ka qaxay dadyowgaasi markay qaxeen ama shaqaale ka noqdeen ama madax bay ka noqdeen ama saraakiil bay wadamo kale oo Soomaaliya ay kamid tahay ka noqdeen dadkii xagga lagu dhalay oo wadankan aan arag oo xagga intii u baxeen nacaybkii dhergigii iyo boqortooyadii iyo cadaadiskii xayla salaasiye wixii wali ay ku qofulnaayeen oo aan wadankan wacyiga ka jir dib ugu soo noqon inay yihiin baan qiyaasaya marka xaqiiqda jirta haddii ay liqaan dhalinyar ma taqaanaa aan yani wadankan aan hore wax uga arag laakiin wacyiga maanta jira hadday yimaadaan garaabi lahaa baan u arkayaa laakiin kuwooda kale aqoontooda laakiin kuwooda kale ku noqon maayo horaan uga soo sheekeeyay waa wax weeye waa dad bahaloobay oo arrintan ku bahaloobay Allah daweeyay baan leenahay marka haddii ay dawoobaan kuwa wadanka u dhashay waan soo dhaweynaynaa wixii software cadow ama cadow ku soo shubtayna de wax weeye xaqiiq wax weeye itusoo istaatiif si baa lagaga bedelay rajo ma ka qabtaa in wada hadallo ay bilowdaan macquulgalna ma tahay heshiisyo nabadeed oo kale in la isugu yimaado arrintaa iyada waxaan oran lahaa horta maanta aan waxaan rabay inaan fursaddan uga faa'iidaysto inaan shacabkeena la dardaarano fursadda intaanan ka hadal waxaan doonayaa inaan shacabkeena dardaaran u gudbiyo dadka ilaa hadda mahadnaqa mudan aan mahadnaq u jeediyo kadibna rajada mustaqbalkan ka hadlo markaan ku horeeyo tan mahadnaqa waxaan u mahadnaqayaa dawladda federaalka iyo dawladda deegaanku madaxdeedu sida ay u danaynayaan ee Google nabadeed u fidinayaan yani mas'uuliyiinta aan iga sarreysay heer deegaan iyo heer federaal waxaan labadaba uga mahadnaqayaa sida ay gogasha u danaynayaan dardaarankii walaaltinimo ay la dardaarmiyeen anna kullay ruux erge loo diray erge nabadeed wax la yidhi wadaad
qardhaaftaad dhigto waa lagu bogsaday buu ugu jecel yahay yaa ama taxliishii aad u dhigtay ilmihii xanuunsanaya waa lagu bogsaday odayna markuu erge galo nabad gala arrinkii aad gashay wuu dhammaaday buu jecel yahay anuu horta kolley heshiis in la galo ruuxa ugu jeclaabana laakiin ha yeesho dee heshiis ay danada shacabka ugu jiraan shacab iyo dowlad baan matalayna un baanu geli karaynaa laakiin arrinta aanu shacabka kula dardaarmaya wax weeye qiyaamaha 3 arrimood baa la yidhi adigoonan lagaala xisaabtamin halkaa taaginta ay ka dhaqaaqi maysid cilmiga iyo caqliga lagu siiyey cilmiguna waa wixii aad baratay ya ama ilaahay bade waxyi kuugu shubay caqliguna waa wixii adiga garashaahay rabbi ku siiyey labadaba wixii aad ku samaysay adoon lagaala xisaabtamin dhaqaaqi maysid xoolaha ku soo galayna halka ay kaa soo galeen iyo halka aad ku bixisay labadaba adoon lagaala xisaabtamin dhaqaaqi maysid haddaad marka horeba soo xaday haddana aad ku tumasho tagto meel xunna way kaa soo galeen meel xunna waad ku bixisay haddaad marka horeba soo dhididood soo shaqaysay haddana aad samafal ku samayso oo iskool ku samayso oo dhakhtar ku dhistid wanaag baad ku dhexisay bay ka dhiganta ta kale waxa weeye cimrigaaga intaa wixii aad ku samaysay iyadna ilaa lagaala xisaabtamay min maalinkaad qaan gaadhay ilaa maalinka aad geeriyootay intaana cimrigaagina waa lagaala xisaabtamay waqtigii alla ku siiyey waxa aad ku fulisayna waa lagaala xisaabtamay marka aanu shacabka maanta waxaan u sheegayaa askariga liyu booliska ee ceelka kuu qodaya ee beerta kuu qodaya ee neefka xoolaha kuu talaalaya ee qof buka kuu daweynaya iyo dowladda iyaduna ceelka riigaa kuu qoda hadda xarshin bay qodayaan nimanka 1300 oo mitir 1 kilomitir iyo badh dhulka hoostooda abuu biyo ka doonaya ceelka noocaaya dowladda kuu keentay ee dhakhtarka kuu dhisaysa ee wax alla wixii sadaqa tijaariyada ahaayee kolkaad dhimato xataa ajriga uu go-ayaa mataqaanaa go-ayaa waxa adiga dembi waxaad geysanayso iyo waxa khayr aad geysanayso labadaba way go-ayaan markaad geeriyooto laakiin waa maxay camalka aan go-ayni waa ka sadaqa tijaariyada la dowladdu maanta wax alla wixii sadaqa tijaariya ahayd bay ka shaqaynaysaa shacabo markaa ogaada in aad fidmada qayb ku leedihiin haddii aad garsoorka iyaga caadilka noqon weydaan ninka ceelka kuu qodaya iyo ninka kuu duminaya ninka wadada miinada dhigaya iyo ninka wadada qodaya ilaalinaya cagaftii samaynaysa ilaalinaya isla markaana miinada ka ilaalinaya marka waxa weeyaan ogaadana in qiyaamaha 4 qodob ruux kastooba wadaninimana lagu la xisaabtamay diinahana lagu la xisaabtamay marka anigu hadda waxa weey iyaga mar dambe la hadli doona hadii ilaahay yiraahdo laakiin shacabkeenan maanta la hadlayaan leeyahay war ubadkiina nin dibadda joogo oo boorso weyn wata oo xaragoonayo kolba jaamacadaha uu sareeyana caruurtiisa geystay isaguna dhiiga shacabka boorso intuu ku shubtay lacag dollar oo u bedelanaya iyo annaga garsoorka noo sameynaysan inuu noqdo mid caadil oo ilaahay daraadi qiyaamaha ay noo balana baan leeyahay maanta waxa weeye rasuulku markuu dadkiisa la hadlayo quraash la hadlayay yaa qoomay buu gaadhay moogtay qabiilkiisu la hadlayay annaguna maanta waxaan la hadlaynaa dadka Soomaaliyeed deegaanka ku dhaqan waliba anagu waxaan leeyahay walaalaha iyaga qabiilka ogaadeenka magaciisa dadka nimanka yaani ku gumaadaya in ay qabiilka ogaadeenka sharafta ogaadeenka qabiilka ugu ballaaran deegaankana in ay sharafta magaca qabiilka ee lagu ugaarsanayo intay ka dagaalamaan inay dhiig dambe inuu daato ay ka dagaalamaan ayaan ogalay Soomaali ahaan baan ula hadlayaa qabiil ahaan baan ula hadlayaa maxaa yeelay ayagan la dhalanay oo magac ku leenahay oo waxay yihiin baan nahay damqasha ay ugu jirto rabbi bay ugu dhiigaas ay soo kaya talaalan marka taasaan aanu kala hadlayaa waa dardaaran ilaahu markhaati ka hawban leh qiyaamaha noo ballana wanaaga dadka iyo samaha dadka inaan anagu jecel lahay iyo inay cid kala jeceshahay ilaahu markhaati ka hawban taaganahay waa dardaaran arag mawlid aad bad mahadsantahay waxaan jeclaan lahaa inaan su'aasha ugu dambeeyo ku weydiinaya ay noqoto haddii ay noqoto in mar labaad isugu yimaado gogol nabadeed iyo miis nabadeed isugu yimaado adinkoo ka duulayo khibraddiina wadahadalkan dhicsoobay maxay noqon doontaa terms of agreementiga ama qodobada heshiiskaasi kula geli doontaan ay mar dambe gogol inaa isugu imaataan suuragal ay ku noqon karto marka hore waxa weeye wadahadallo dambe inay horta yimaadaan annagu sidii shalayba gogasheeda u fidsanayd bay u fidsantay dowlad ahaan yacni waxa weeyaan gogol nabadeed baa noo fidsan waa marka koowaad oo diyaar baan unahay laakiin laba arrimood baa ku xidhan labada arrimood ku xidhan waxa weeye kow waxa weeye dastuurku mid aan aniga iyo cid kastoo iga mid gorgortan ka galaysa maaha dastuurka inay u hoggaansamaan inay aqoonsadaan maaha inay u hoggaansamaan oo ku dhaqmaan kow inay taa ka soo xisaabtamaan labo khaladaadkay ummadda ka galeen 18 sano ay xabadda dadka ku ridayeen
يعني ما وحبة قلبسن دليين يكون أجروبيين مينا عدد عن وحبة قلبسن بابور كوديين عقبات أيكوا هاين هرمرك وطنك معامل كسلطان أنت أي عجاه جديد بالفير هذا قبلا ذي كذا دقائقين يجو قبلا ذا أين كذا دقائقين هرمر يسكمد ما والله إن يسكمد إنه بالله إن يسكمد هاي هذا النقاب يجو قبل كجيجا يسكمد ما تكتة هذا ما يلا بوا تكتة وام حفرق جود حياة فرق جود حياة وأنت أبود أنت وياه marka khaladaadkooga iyaga oo ka garaabay oo tabartoodii soo miisaamay oo khaladkay ummadda ka galaabeen qoomamaynaya oo ilmadu ka daayso oo alla ilaahay waanu gafsanayn leh inay miiska yimaadaan way kii wadanka aan u dhalan iyo kii wadanka aan u danqarayna iyagoo ka soo xisaabtamay inay miiska yimaadaan way oo macnaha sidii walaalaheenii UWSLS sharafta badnaa Sheekh Ibrahim iyo raggii ay hogaaminayeen Abdikariin sharaftii raggaasi lahaayeen oo kale iyagu maxay markay nabadda qaadanayeen qaateen nimanka waan u mahadnaqayaa runtii waxay ayaga oo soo xisaabtamay xaaladda deegaanka qiimeeyay oo xaaladda Itoobiyada maanta barbar dhigay xaaladda Itoobiyadii hore dhargiga iyo boqortooyadii barbar dhigay oo xaaladooda military qiimeeyo midooda dhaqaale qiimeeyay oo dareemay inay luqta shacabkooga hayaan maanta maxay nagu soo kordhiyeen haynagu soo kordhiyeen horumar investment bay nagu soo kordhiyeen ceelashay u qodeen bay maanta fiiq biyaha cabaysa yaa qoday UWSLF قطعي. هاي دساد أيوة. هاي دساد يجوا استعماله. ما أنت إمسا راشين كجبنا ومدة مساكين تلاك هنا قيمها جبنا لقى كذا يا ما أنت سمعنا نلاش الشعب ككارنتي كله بيروا وين بيسمينا ودكتور حد يعني هو حوي إن من كاس أو كلمة أوران كرو يعني ودنيات كوتشرت هي شخصيات كوتشرت أقونتو ده يكرتيدو ده كوكل صناعي كي يعني نمكن مالنتي يجا نبات قاتين هل كان جيني مالن بوحنجي دوسي عمر بن الخطاب عن صمرنا معلمينتي هل كان شوك تبي لا يابين مركان يوحي مقدشة كداعي معلم قدكو هل كان شوك وهيبدأ الدين هذا كم مقطع علم يا نور كسو إفيا ديارتو وي دين كسودي إن مادة إن محوها علم مادة وحنقوها يستا وحنا هاي إن محوها إنجنير بان هاي دين جنا ماستر بان قوها يستا هل كان كسبت جامعة الأسر متكلة إندونيسيا متكلة باكستان متكلة كان فصل كجريد كيتشيونك أي صومر إنه عرورتي رياضة قبلها يريرين ولينين يناقبن نقول دم بيجيلن أو قبله يرير حجابين يجون شرفت ينور كم موضوع كلاس كارف يعني نشيد عربي قاضي يعني ميدا في الصومالية قاضي يعني وحيلا يا من أرض قبل فصل كتضواف ده وأف إنجليزي يا في عربي يو أف صومالي iyo mid alla midkay doonto report-ka doontan igu weydiiyay ee deegaanka in ku saabsan dugsiga iyo environment-ka ku noolahay markaas waxa weey odaygii ugu gadhka weynaa hore war dheer ahaa ilaa 70 jir ilaa 65 meelaha ahaa ilma ka soo tiixdo ilaahay baa igu yani waxa fikirka ay deegaanka ka haysteen iyo faktiga dhabtay ugu yimaadeen bay ka wamaynayeen marka walaalaheenaas oo kale sharafta mudan sidii ay shalay u xisaabtameen ay wanaaga iyo heshiiska u qaateen ay maanta hormuudka horumarka iyo nabadgelyada u yihiin inay sideedoo kale iyagoo u xisaabtamay ay yimaadaan yaan kula talinayaan mustaqbalka lagu gali doonaa waa taa wey wax kale oo la isugu imaan karaa ma jiro annagu laakiin nabad gogoleed way noo fidsan tahay annagoo tabartayada iyo awooddayadu haddana ay halka aan sheegaya ay taagantay oo Itoobiya gudaheega intay xasilisay ay wadamada jaarka xasilinayso ciidanka liyu booliskuna intuu halka hubkii iskaga tiriyay oo shacabka beeraha u qodayo iyo iskuulada u dhisayo dadkii ka waxa weeyaan تكليا مرتم بيسوق نقول كرنا وتاوي وين سو حساب تمام وإستبا وصو حساب تمام وأنا إنه نينك دت كان ولا شيء ودن كان كذا شيء يماد مسك وهي هي أدو مهتسني هاي مدن مولد هاير أو ها إرجع ديجان كسمر دوجت تري أنقلك في طمحان ده كرا مركو قدام بس يمادن دعنا علنته وديار بوطه هدي له هذا وحويان أنا كلي وحوي الشعب كيجا وامتحان ويا الدنيا ده وحي لهاي كسيبا أنا جو كورس كان فرديانا امتحان بيجي هاي وأنا نمضي ده وقادي عقلك يا أقوانت وحي الله يقول تقينا وأنا نمضي ده وقادي أنا جو مرنا بحكرن معي معلم كي مستقبل أو سما فلك وندك أنا وأنا جو مفرع وأكلم مفرع وحدتك هاكو سمين ومصيب دينتك مفرد شرع الدولة مفرد وحنا دينتي شرع الدولة دو يكون فرعنا كودا كانوا بني هذا وحي في آخر بعرف عن لقيه اليوم بانوشيغا والله إننا كاهرين ونوشيغ واي هاد بماتسنيا مولد هاير oo aha ergigii xukuumadda dawladda deegaanka Soomaaliya uga qayb galay wada hadaladii nabadda ee cusubay ee ka dhacay dalka Kenya magaalada Nairobi sidoo kale mawlid waxa weeye
وكحجينك مريها وزيرك وكالة الدخل دولة ديانك الصومالي ذا لتليها مدحوينها سيد وكلنا ومعلنك عيد مدى ليو بوليس كاي قلن شبيه دمانتود أفلحيي آد بقوم هتسين سيدا فافاسا مركزي ونوقو قادة ديقي سببها ودعي سبي وهذا الذي نبضى إلا قلي كوحدة عن عسمرة أوبا يوليبا سوير كجودو نجسيني أود يدغدغاق يا سياسة كدم بيسا كوحدة زدبدة لجسوا الريحية عسمرة اللغة اليوم هذا يوم هسنيها برنامج كيجنا حنشعلان لها إن نداو ضيال يوليبا موليدو أنت أنا كسوق قبله أنت أنا برنامج كلام مدى استجيب عن دونه وبهدي اس تي في واسكدومني إذن لا سداسية كل أنت دم بوحي سله